ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay habeen iyo maalin u taagan yihiin ilaalinta sharafta nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan. Shalay oo ay taariikhdu ahayd 4 bishii koowaad 19 abaaro 2:30 daqiiqo waxaa ciidanka booliiska u yimid dhibane xildhibaan Luul Cabdi Aadan oo ka dacwoonaysa eedaysane Maryan Khaliif Abu. xildhibaanada waxaa la siiyay rifeerto kadibna waxaa raacay ciidan waxayna u geysay ciidankii qofkii ay ka dacwoonaysay oo eedaysanaha ahaa. waa la soo qabtay. markii la soo qabtay saldhigga ayaa lagu soo xiray. saldhigga markii lagu soo xiray iyaduna rifeertadii bay qaadatay. rifeertadii ay qaadatay way soo cadaysay. dhakhtarka ayaa soo cadeeyay wataas waxaa lagu soo cadeeyay in ay tahay in dhaawac culus inuu soo gaaray. xildhibaanada sida aad aragteen oo websaydyada aad ka aragteen dhib culus ayaa ku yaala sida aad sawirradaba uga jeedaan. dhibkaas culusna waxaa geystay oo qirsanayd oo qiraal ahayd eedaysane Maryan Khaliif Abu. markii la xiray oo saldhigga lagu xiray damaanad ayaa lagu sii daayay. damaanadii mar laala markii lagu sii daayay ciidanka booliisku waxay heleen information in ay Luul in ay eedaysanihii uu ka baxayo airportka oo ay fakanayso. waa la soo qabtay. ciidanka booliiska ayaa soo qabtay. waxay ku guuleysteen inay ku soo celiyaan saldhiggeedii. arrintaas waa sharci in damaanad qofka lagu sii daayo. waa sharci weeye. waa la ogol yahay qofka markii la damiinto oo damaanadda sharciyan lagu sii daayo qofku ma dhaafi karo eeriyadaas loo ogol yahay oo lagu damiintay oo uu dhibku ka dhacay. ma uu ka bixi karo gobol kale ma aadi karo meel kale ma aadi karo sida sharcigu uu yahay weeye. meel kalena ma uu aadi karo mana dhoofi karo degmo kalena ma aadi karo gobol kalena ma uu aadi karo. wuxuu joogayaa ilaa arrintaas ay dhammaanayso oo sharciga la waafajinayo. wuxuu joogayaa goobtaas lagu damiintay. sidaas ayaa lagu ogaa. damaanaddana sharciyan waa sidaas. ayadoo baxsanaysaa la soo qabtay. mar allaala markii la soo qabtana waxaa lagu soo celiyey goobteedii. saldhigga ayay joogtaa. saldhigga ayay ku xiran tahay. sidaa ayaana maaragtay ay arrintaasi ahayd. xildhibaanadiina waa ay joogtaa dhibanaha ahayd. ayadiina saldhigga ayay ku xiran tahay. damaanaddana macnaheedu waa sidaas. inaan meesha la dhaafin in aan meeshaas laga tegi karin weeye macnaheedu. waxaa ummadda Soomaaliyeed looga digayaa oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu uga digayaa sida sharciga ah hadalka macno la'aanta ah oo sal iyo raad midna lahayn oo baraha bulshada loo adeegsanayo. qofkii lagu qabto oo lagu helo asagoo hadal aan sal iyo raad midna lahayn u isticmaalaya baraha bulshada wuxuu rabaa ha ahaado arrintaas sharciga ayaa la waafajinayaa qofkaas.